maxkamad aan rasmi ahayn oo ku taala magaalada London ayaa baaritaan ku sameysay qaabka uu Shiinuhu ula dhaqmo dadka laga tirada badan yahay ee Uyghurska waxa ayna cadeymo muujinayaan dambiyo ka dhan ah bani'aadanimada iyo xasuuqa. Natiijooyinka ayaa faahfaahinaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee habaysan kuwaasi oo ay ku jiraan in xoog dadka loogu shaqeysto iyo jirdil. Maxkamaddu waxay sheegtay in haweenku ay ahaayeen kuwa aan raalli ka ahayn haddana qoysaskooda laga fogeeyay. hadallada marqaatiyada waxay sidoo kale tilmaamayaan kufsi iyo weeraro ka dhaca xeryaha dadka lagu hayo. Caroline Hawley ayaa la hadashay hal nin oo ka soo jeeda Kazakh kaasoo cadeymo u gudbiyay maxkamadda. Waxa la xiray ninkaasi 2017 waxaana lagu qasbay inuu qasab ku shaqeeyo. Waatan Imaan Cabdullaahi Maxamed oo soo jeedisa. nabaradan gacmaha waxaa keenay silsiladihii ay lagu hayay gacmaha bay kaga xidheen feer ayay u garaaci jireen ilaa ma aan dhacayo kadibna way jiidi jireen aad ayay u xanuun badneed marar ayaan isiri waxa fiicnaan lahayd inay si xun ku garaacaan si aad u dhimatid. Kani waa Erbakad oo ah markhaatigii ugu horeeyay dulmiga Shiinuhu u geystay muslimiinta ku nool Xinjiang mid ka mid ah daraasiin maxaabiis ah oo cadeymo ka bixiyay dhageysigii London. Waxaa la xiray sanadkii 2017 isagoo lagu eedeeyay in uu soo dejistay programka WhatsApp-ka oo laga xanibay Shiinaha iyo in uu daawado muuqaalo ku saabsan Islaamka. Xabsigii ugu horeeyay ayaa ahaa kii ugu xumaa. labada gacmood iyo lugaha waa la iga xidhay miisaanka silsiladu wuxuu ahaa 7 kiilo waxaan joogay 8 maalmood weli waan ku riyoodaa oon ku qarwaa wixii meeshaasi iga haleelay. waxa uu sheegay in mar lagu ciqaabay cabashadiisa in uu gaajeysan yahay uu xasuusto in la saaray wax la yiraahdo kursiga shabeelka. markii aanu adkaysan weynay ee aanu iska caabinay wayna garaaci jireen meeshaas ayaana la fadhiisin jiray oo ul ayay adeegsan jireen waxa kale oo ay isticmaali jireen koronto ay nagu qaban jireen. waa halkan meesha uu sheegay in lagu hayay ka hor inta aan loo rarin xero waxbarasho. subaxdii markaan ka soo baxano qolka jiifka ayaanu saf gali jirnay kadibna fasalka ayaanu fadhiisan jirnay fasalkana waxaa jiray biro loogu talagalay oo annaga uu nagu xidhi jiray macallinku markaas ayay bilaabi jireen inayna baraan xuruufta Shiinaha oo lagu barto fasalka koowaad. ma qaylin karaysid ma caayi karaysid markaasi aan u ciil baxno waanu heesi jirnay. maxaad u malaynaysaa in Shiinaha ujeedkiisu ahaa? Shiinuhu hal ujeeddo ayay leeyihiin ujeeddaduna waxa weeyaan inay baabi'iyaan muslimnimada luqadda iyo diinta. waxaa jirtay waqti hooyaday ay soo booqatay hooyaday waxay ka weyntaa 70 jir weligeedna ma ay bixin xijaab la'aan waxay ahayd markii ugu horeysay aan arko anigu timaheedii xerada kaliya dhibaatadu kama jirto sidoo kale noloshu way adag tahay dibaddana markaad eegto usbuucii 2 jeer ayay soo booqan jirtay. dhammaadkii xabsigiisa Erbakad waxa uu sheegay in lagu qasbay in uu ka shaqeeyo dhismahan halkaas oo uu ku tali jiray dharka labiska. waxa uu sheegay in uu saxiixay warqado uu ku ballan qaadayo in uusan shaacin waxa ku dhacay. waa mid ka mid ah ugu yaraan 1 milyan oo Uyghurs ah iyo qowmiyado kale oo laga tirada badan yahay oo la rumaysan yahay in lagu xiray Xinjiang. maxaa faa'iido haddii aan wax iska abuuro ama aan been ka sheego waxaa waajib igu ah inaan ka hadlo wixii dhacay.